maxbuus ilaahay ka fayday kurbad haysatay oo inala jooga waa maxamed muuse gamteesa oo xidhnaa ilaa 2001 ilaa 2021 xabsigana galay isagoo 20 jira maantana soo baxay isagoo 40 jira waa ilaahay mahadi waxa ugu horeyn aan u mahad celinaynaa cid kasta oo walaalkeen ka qayb qaadatay soo deyntiisa oo aan mar dhow xusi doono sida uu ku soo baxay allah baana mahadda koobaad leh ilaahay waa mahadsan yahay laka alxamdu ya allah haddaan idinka warramo walaalkan 2001 ayaa shil ku dhacay kadibna maxkamaddii waxa ay ku xukuntay maxkamaddii ugu dambeysay waxay ku xukuntay mag bay ku xukuntay iyo 8 sano marka muddada dheer waxa uu sugayay qaanta lagu leeyahay cid ka bixisa manuu helin dhawaan ayaanu helay waana ilaahay mahadi ilaahay waxa weeye farajka asbaab ayuu sameeyaa qawaaniin uu kownkani ku samaysan yahay ayaa jira runtii cidda uu doonayo ilaahay inuu ka faydo waxa weeye kun fayakuunna waa uu yidhaahdaa walaalkan anigu shakhsiyan waxaan kula kulmay xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa waxaan u ahaa saaxiibkayga jeelka waxaanu ka mid ahaa aan go'aansaday ee aanu isku ogeyn marka aan dabadda u baxo inaan hawshiisa ka qayb qaato sidaasaanu ku ballannay ballanta anigoo ku taagan oo yani doonaya inaan ku beego munaasabad iyo si yani walaalkan ku soo baxo wax kalena ma ahayna sidii aan yani aan dadka ugu soo bandhigi lahaa in magta laga bixiyo keliya ayay ahayd waxaa dhacay wax kaloo cajiib ah oo runtii yani muxuu ahay awoodda ilaahay ah waxa ay xabsiga ku kulmeen ninka la yidhaahdo cabdimanaan yuusuf cabdimanaan maxamed yuusuf annagoo hawshiisa ku jirna oo sugayna ayaa waxay cabdimanaan bay wax isugu yimaadeen xabsiga cabdimanaan ood ogeydeen inuu yahay guddoomiyaha astaan muuqbaahiyaha astaan oo halkaa isaguna lagu xidhay cabdimanaan baa ballan qaaday inuu yani bixin doono magta lagu leeyahay annagoo ah kaalmee kuwanna waxaanu xidhiidh la samaynay eheladii iyo maxkamaddii baanu xidhiidh la samaynay waxaanu runtii magtu waad ogtihiinoo way badan tahay laakiin qoyska marxuumka yani wadahadal aanu ku yeelannay magtii way naga cafiyeen waxayna runtii ay naga oggolaadeen inay naga qaataan keliya lacag gaadhaysa $7,000 waad ogtihiin $7,000 mag maaha oo magtu way ka badan tahay hawshaasaanu gallay waxa weeye markaa waxay noqotay inaanu maxkamaddii aanu u gudagallo oo yani waxa weeye uu xidhan yahay waxay u maraysaa waddo loo maro teeda labaad waxaa jira yani marxuumka dhintay eheluu leeyahay waxay nagu qaadatay qaar naga mid ah inay muxuu ahaye Ethiopia tagaan oo dadkii nala shaqaynaya oo halkaa muxuu ahaye ay cadaymihii looga baahnaa ay soo qaadaan waanu muxuu ahaye muddaanu ku jirnay 2 bilood ee ugu dambeeyay hawshaasaan ku jirnay yani waxaan u kala soconnay maxkamadaha gudahooda aan u kala soconnay hawshiina waxa weeye way noo soo dhammaatay maanta ayaanu soo qaadnay waraaqdii soo deynta maantaana muxuu ahaye soo deyn ilaahay fadligii uu ku soo baxay waxa mahad leh allah baa mahad leh waxaa kaloo mahad leh cabdimanaan oo bixiyey 7,000 ee aanu reerku naga qaateen waxaa kaloo mahad leh oo nala shaqeeyey madaxda maxkamadda sare oo ugu horreeyo guddoomiyaha maxkamadda sare aadan xaaji cali oo runtii arrinkaas si weyn u fududeeyey iyo ku-xigeenkiisa maxamed cumar geelle iyo in badan oo garsoorayaala iyo howlwadeenno maxkamadda ka mid ah oo runtii nala shaqaynayay waan u mahadnaqaynaa waxaan kaloo u mahadnaqaynaa marxuumka dhintay ehelkiisa
oo si weyn noola shaqeeyey xaqiiqatan waxa weeye way nala shaqeeyeen way awoodi karayeen inay rafcaan qaataan oo ay maxkamad sare rafcaan ka qaataan xukunkii soo baxay magtaa oo ay soo ogaan kiis kale laakiin way noo fudeeyeen cafis buu ahaa iyaguna waanu mahad celinaynaa oo ugu horeeyo cabdiraxmaan qaabato oday la yidhaahdo oo marxuumka abti u ahaa iyo xuseen xaaji cabdi nuure oo marxuumka walaalkii ahaa oo nala shaqaynayay si weyn noola shaqaynay iyo marxuumka hooyadii oo loogu tegey halkaas oo soo caddaysay iyaduna muxuu ahayay inay cafiday ilahay khayr ha ku abaalmariyo qoyskaas iyo dadyow kale oo ilaahay og yahay oo muxuu ahay nala shaqeeyey baa jira runtii iyo waxaanu ilownana insha allah biidni illahi alkariim gadaal ayaan muxuu ahay insha allah ka sheegi doonaa walaalkeen haddii aan sheego yani waxa weeye waa muslim haddaan qeexitaan intaa ka badan bixiyo waa nin muslina oo ka soo jeeda qowmiyadda oromada runtii halkanuu ku xidhan yahay in ixsaanka la sameeyaana kuma xidhna qabiil iyo midab iyo qowmiyad kuma xidhna samafalku cid ma laha waxaa kaloo noo qorshaysan haddaanu nahay kaalme kuwan dadyow kale oo ku jira xabsiga inaynu halkaa ugu tagno oo aanu barnaamijkoodaanu qaar ku guda jirnaa sidii ay u soo bixi lahaayeen ayaan muxuu ahay insha allah ayaanu muxuu ahaye aanu qaban doonaa biidni illahi alkariim walaalkeen maanta waxaan ku soo gebagabeynayaa oo kale runtii cabdimanaan hawshan si gaaru muxuu ahaye uu yidhi waan u qabanayaa waa ilaahay mahaddi ma doonayna culays intaa ka badan inuu saarno xaqiiqatan waxa weye soo dayntiisii yani muxuu ahaye wuu qaabilay oo khaasatan 7,000 waxaan doonaynaa oo kale aan doonayaa maadaama aanu nahay barnaamijka kaalme kuwan waxaan doonaynaa maxbuus ka horreeyey waxaanu samaynay inaanu dalkiisiibuu ku laabanaya waxba ma haysto nin 20 sano xidhan idinku bal qiyaasa oo maanta soo baxay qaabka uu gaadhiga u fuuleeyey ayaanu ka garanaynay runtii muxuu ahaye muddada dheer uu ka maqnaa meesha iyo siduu yani bal siduu la qabsanaya muxuu ahaye bulshadana bal ka qiyaasa maadaama uu gaadhiga fuulistiisii uu la qabsan waayey marka waxa weeye waxaan ku baaqaynaa dadka muxuu ahaye samafalka jecel inay walaalkan garab soo siiyaan oo aynu anbabixinno ayaamahan halkan ula joogayaa aynu si wacan u anbabixinno aynu muxuu ahaye guddoonsiino wuxuu ku tago oo muxuu ahaye uu nolol cusub uu ku dhiso kuwo kalena way noo qorshaysan tahay waxaan doonayaa halkan ka sheego dadyow kale oo muxuu ahaye aan dhowaan sheegi doonaan ayaanu ka shaqayn doonaa insha allah biidni illahi alkariim anigu intaasaan muxuu ahaye kaga baxayaa baaraka allahu fiikum waad mahadsantihin bahda saxaafadda inoo timaadeen maanta ay taariikhdu tahay 15 rajab 1442 hijriya bisha kalena ay tahay 27 bisha labaad 2021 wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ku soo dhaweynayaa walaalada kale ugu dambeynaya maxamed inoo dambeeyo ma bedela بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين marka koowaad waxa mahad oo dhan leh ilaaha awoodiisa maxamed ku soo daayay iyo amarkiisa marka labaad waxaan u mahad celinayaa walaalkii cabdimaalik oo gargaara ah oo nasrullaahi ah oo hormood ka ahaa soo dayntaas jaalle waxaan kaloo u mahad celinayaa isagana oo u ducaynaynaa waliba mulkiilaha astaan TV cabdimanaan oo walaalkeen diyada ka bixiyay anu walaalkay waxaanu isbaranay 2017 wara laba bilood ku xidhnaa xabsiga Hargeysa ayaanu isku qolahayn oo aan wada deganeen qol la yiraahdo number 1 oo blog A ku yaal sariirtayga sarreeyay deganaan ninkana waa nin muslina waa nin mu'mina wuxuu ahaa imaamkayagii mu'adinkana noo ahaa waxaan ka warwaray mar labaad oo kalena xabsiga waa ku noqdo 2019 isagoo wali sidii ugu jira mar kastoo ninkaa arkana iyo walaalo kaloo ku jirana niyadiisa iyo iimaankiisa iyo samirkiisu meel buu wada taagnaa waxaan ka murugaysanahay oo aan ka warwarayaa oo aanan ilaawi karaynin inaanu xabsiga kaga nimi walaalo kaloo iyaguna gargaar u baahan waxaan se ku faraxsanahay inay haystaan dad muxsiniin oo dibadda jooga oon ka nasanaynin oo cabdimaalik koob ka yahay maadaama cabdimaalik uu xanuunka xabsiga iyo xurriyad la'aanta uu yahay nin soo arkay
uu garanayo qof muslina oo ku xidhan xabsigu dhibta waxa weeye iyo kadeedkii kurbada haysa waxaan ummadda u soo jeedinayaa walaalaha kale ku hadhay ee sharcigu xaq u siinaya inay soo baxaan ee aan iyaguna haysanin xorriyad in la iska kaashado oo laga qayb qaato soo deyntooda iyo inay xorriyad helaan waxaa ku jira xabsiyada weliba xabsiga dhexe Hargeysa tobanaan dada oo u baahan gargaar iyo xorriyad oo qaarkood u xidhan yihiin waxaan $1,000 gaadhin ay 5 sano iyo in ka badan xidhan yihiin qaarkoodna ay u xidhan yihiin diye iyo mag lagu heshiiyey oo cid ka bixisa weyday dad badan oo kalena ay kaalmo u baahan yihiin maadaama ay maqan tahay oo aynaan haynin dawlad weyn oo awood loo kaalintaa qaadata inaynaan inagu ka nasan oo inaan ka seexan oo inaan ka hadhin oo walaalaha kale xidhan ee ku jira xabsiga ee kurbada xorriyad la'aantu hayso inaynu ka qayb qaadanno oo aynu isku kaashanno ayaan iyagana idinku baraarujinaya oo soo jeedinaya walaalkeen maxamed oo naareystiisu tahay sinjaalle 20 sano xidhnaa maantana waa 40 jir oo idinka arkaya nuurka ka baxaya iyo sujuudda ku taalla iyo waxa weeye inuu kuwa dibadda jooga uu ka nuur badan yahay waa samirka iyo taqwada iyo yaqiintu ogaa in ilaahay maalintuu ugu tala galay oo xabsiga ka baxay waxaynu ugu ducaynaynaa inuu ilaahay meel roon mariyo walaalaha ka qayb qaato xorriyadiisa dal iyo dibad meel wala joogaan oo cabdimaalig u horeeyana miisaanka xasanaadka ugu daro gudoomiyaha maxkamadda sare oo isna door weyn ku lahaana oo ay tahay mas'uuliyadiisii oo shaqadiisa rasmiga ah ay tahay in walaalaha dadka xidhan iyo dadka cadaalad darradu hayso oo ka dulqaado kurbada aan runtii ku amaanayno in kastay tahay mas'uuliyadiisii haddana in kaalmo badan oo kala loola iman doonaaye dad badan oo kale aan ognahay oo cabdimaalig ballan qaado kaalme kuwan ka hawlgalaya jireen la fudaydiyo xeer ilaalintii maxkamadda wixii kaga xidhan laga furfuro wixii xooliyo adduunana inagoo muwaadiniina oo muslimiina oo ka fikirayna jacaylkeen iyo walaalnimadeena inaynu kaalinta dadnimo ee damiirkeena maaragtay wax taraysa aynu qaadanno ayaynu iyadana maaragtay eegayna wala dafco isaguna xaq u dirra oo runtii sharciga in badan arrimaha ka hadlay oo tala badanna ka bixiyeyna isna mar walba waxaanu kala tashanaa tallaabo waloo la qaadaya sharciyan saamaynta keenayso iyo sida looga jid bixi karo kama maqna isaguna waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba aan u ducaynayaa walaalkeena xorriyadda hele ilaahay ka dulqaaday kurbada walaalaha soo daayay iyo cid kastoo dadaalka qayb ka ahayd aynu isku kaashanno in ay helaan dad badan oo maxaabiis oo walaalaheen inay xorriyad helaan oo aynu soo saarnay ifka aad baa u mahadsantahay marka hore waan mahad celinaya ilaahayna khayr badan ka siiyo dadka ka qayb qaatay dadaalka weyn galay qof xarig soo maray qof xiran uu baa garan kara culayska iyo warwarka iyo dhibaatada ay leedahay in qofka xabsi ku jiro waliba qofku inuu dulma tirsanayaan way ka sii xanuun badan tahay inuu xabsi ku jiro marka ajar badan bay geeyayaan waxyaabaha diintu sheegtay dadka in diinta laga dulqaado in ajarka badan laga helayo kamid tahay marka iyagu uga mahad celinaya si wadaana waan doonay waxaan doonayaa anigu inaan xagga qaanuunka iska yara taago dadka la xidhay dalkeena waxay u badan yihiin dad ama dhaawac ama hanti loo xidhay oo ama maartay hanti la burburiyay ama qof la leeyahay waxba la yar ciqaabo xeerarku ka dhigayaano la saarayo lagu xukumaya waxa sidoo kale dhinac socota in qaantii ama diintii ama hantidii qofkaasi lalahaa uu geystay ama cid buu ka burburiyay inay la socoto dalkeena marka ay sharciga qofka marka xukunkiisa uu dhameeyay ciqaabtiisa 3 sano 5 sano 6 sano 8 waxay doontaa noqotay qaanuunku wuxuu sheegay qofkan xorriyadiisa loo soo celiyo ciddii hanti uu sheeganaysay qaanuun kula haydna ay kolka dacwad madani oo fulina furato ilaa qofku jeelkii lacag ku daldalin oo dheeman kama soo gurin wuxuu loo haystaana waa deyn uu deyntiisa ugu dibadda jeegay iska gudo sharcigeenu saas u dhigay iyadoo sidaa tahay bay dad badan maanta waxay ugu xidhan xabsiyadeena siba xabsiga Hargeysa hanti bay ugu xidhan in qof iyo 2 iyo 3 lacag laga bixiyaana si kastoo loo ururiyo dadka xabsiga kama soo wada deyn karayso mas'uuliyiinta ay kolka khusayso ee sharciga isla wada garanayno ee maxkamaduhu kamid yihiin xiraalintu kamid tahay dadka jeelka maamulay kamid yihiin ana waxaan ka codsanayaa inay dadka u naxariistaan xorriyadooda u soo celiyaan qof ciqaabtii aad ku xukuntay dhamaystay
oo intii uu ku xukuntay dembigii aad ka jaraysay aad ka jartay sababaad hanti ugu haysataa ma jirto qaanuunkeeni ma waafaqsana sharciga caalamiga ma waafaqsana diinta islaamka ma waafaqsana meel lama haysato dadkan xiriirooda loo soo celiyaa baan ka codsanay sanad walba haddaad guddiga xuquuqsan ku tagtaan dhowr boqol qof bay soo saaraan liiskooda qolada xabsiga haysataa oo ah dadka ay sheegayaan inay u xiran yihiin hanti marka waxaan si weyn u codsanaya in dadka xiriirooda loo soo celiyo oo la fasaxo qofka ciqaabtii iyo dembigii dawladdu ku lahayd markuu dhamaysto waa inuu albaabka ka baxaa qofka hantida ku lihina u dacwad mudana fura dadka qaarkood dadkii wax ku lahaa lamaba garanayo qofka laga yaabo intuu mobile yar la cararo inay yari oo $100 oo $100 lagu xukumay isagana lacag aan haysan oo dan yar iyo gabayo iyo kulma ka yimi inuu oranayo ilaad $100 iska bixisay lagu sii deynay xagu $100 ka keenay markii soo miskiin buu gaaja u geysay inuu waxaan sameeyo marka anigu taasaan doonayaan carabka ku adkeeyo inta taa laga gaarayna dadka wanaagsan ee sadaqada bixiyo waxyaabaha rasuulkuna sheegay sallallahu alayhi wasallam sadaqada lagu bixiyo kamid tahay in qof diin leeyahay deynka ka dulqaadi ama adigu kula hawo ka cafi oo qofka maanta qof xiran yahay inaad ka cafidaaba kaaga wanaagsan sida qoyskaas dan iyo dilka loo haysto in $100 $900 qof kugu xanimnaado inaad cafidaaba kaaga ajar badan oo maalin inta in ka badan wax kaaga tarayso ayaa jira dadka kale inay sadaqada bixinayaan zakada bixinayaan inay dadka og ku soo hagaajiyaan oo laga dulqaado ayaan ka codsanaya laakiin ta wax ka tari kartaa waxa weeye in cidda gacanta ku haysa ay dadkaas ka fasaxdo way qof binaadana dulmi ku haysatid uu guriga ugu qafilaado qof $100 ku leh ama $1,000 ku leh maaha xaq garra maaha ee dadka la sidaayay aad ugu mahadsantiin dhamaantiin محمد حوي درeenkaaga ayaad ku bilaabaysaa maanta alxamdulilah asalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam alxamdulilah markii koobaaye markii labaa marka saddex ilaahay maxaanaqinaa maxaanaqadabi raggii shaqeeye walaaladiini kii dibadda kii kuda ii shaqeeye meeshayga soo saare waa maanaqiyaa gaaraan abdimanaan maxamed yuusuf amaanag iyo mar labaa mar saddaa halkan waxay la joogaa walaalkay qaaliga cabdimaalik muuse aldoon isagana waa maanag iyo waynoo shaqeeyey meeshayga soo saaray nin warba u garanayaa waa qabrin ka soo bahay qabriga alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waa maanag ilaahay maanag iyo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin walaaladiina ii shaqeeyey meeshayga soo saare waxaan waxba qaban karayo ilaahay habaal gudiyaa halkaas insha allahi rabbuna way soo ducaynayaa anigu waa kale waa qaban kari garan maayo waan faraadsan yahay ilaahay maadi wayaan waa ilaahay maadi kadib insha allahi rabbuna haddaa ilaahay caafimaadna siiyey 20 sano absi ku jiro meel allaale meelun ku dhaqaagu garan maayo insha allah kadib hoosta doonaya ka xariiqo qodobka ah walaalkani maanta muxuu ahaayey walaalkani ereygaasna doonaya inuu adkeeyo xaqiiqatan ereyga wiilna runtiina taabanaya waxaan u baahan nahay runtii dadkii jaaniska inay maanta muxuu ahaayey walaalkan qaamoobay inay ku xoreeyaan dhaqaale oo fadli weyn leh mid ilaahay og yahay leh waxaan muxuu ahaayey waxaan ugu baaqayaa walaalkan muxuu ahaayey inala taagan aynu garab aynu ka farxino farxad labaad aynu ka farxino oo waxa weeye aynu dhaqaale uruurino habadega muxuu ahaay hargeysa hadego meel layaanu tegin oo halkan noloshiisa ha ka asaaso deegaankiisana ha soo booqdo yani muxuu ahaay aynu runtii wanaag walaalkeena tusno aynu ku caawino muxuu ahaayey yani islaamnimada dadnimada waxyaaba badan baynu muxuu ahaay ku caawin karnaa marka waxa weeye fursad baad haysataan garab hala soo siiyo maalmahan waxa weeye marka insha allah waa joogi doonaa insha allah bidna waa kugu leeyahay xaggaan u dhaqaaqa garan maayo meel u dhaqaaqa aniguna meel aan ku sii dayno dee ma jirto laakiin waxa weeye waan la joogi doonaa insha allah bidna alkariim waxaan idinka mahad celinaynaa bahda warbaahinta
xaqiiqatan idinka muxuu ahaye idinkoo aan dhaqaale naga qaadanayn baad ayaad warkan tabinaysaan jazaakum allahu khayr ilahay khayr idinku abaalmariyo waxaanan idiin sheegayaa waxa weeye saameyn weyn baad leedihiin waxaan yani aan idinku baaqaya war xabsiga waxaa ku jira dad aan awoodeyn inay kabraduhu soo galaan maadaama aana jirin dad ay awoodeyn kabraduhu soo galaan waxaanu isu xilqaanay oo culays ka saarnay haddaan nahay kaalme kuwan arrinka maxaabiista inaanu kow ka dhigno dadka xanuunsanaya laban ugu talagalay inanu ka dhigno iyo wixii kale baahiyaha kale saas awgeed nala socda haddii aydan idinku baahinayn oo aynan war ka soo diyaarinayn gudaha waxa weeye annagaa idiin soo gudbinayna fadlan nala xidhiidha teeda labaad waxa weeye waxa aan ka codsanaynaa xukuumadda lafteeda waxaan ka codsanaynaa warbaahintaa loo fasaxo jeelasha waxa weeye way jiraan dalal badan oo caalamka ka mid ah oo yani muxuu ahay warbaahintu gasho iyaa yidhi warbaahintu ma gasho gudaha waa la galaa gudaha cabdile baa laga soo duubayay waad arkayseen oo muxuu ahaye laga soo warramayay warbaahinta madaxa bannaan maaha kuwa muxuu ahaye dawladdu ay gacanta ku hayso waxaan doonaynaa aad dalbataan xaq baad u leedihiin waxa weeye dad baa gidaarka ka dambeeya waa inaad soo ogaataan maxay ku xidhan yihiin duruufahooda iyo siday u nool yihiin maaha muxuu ahaye maalinta halkaa la geliyo inaynu ku aamusno aynu dalbanno aynu muxuu ahaye inu warbaahinta gudaha gasho oo la soo waraysano maxaabiista maxay cunaan sidee bay ku nool yihiin kiisaskoodu sidee baa loola dhaqmaa intaasoo dhan waxa weeye waa in warbaahintu ay ummadda usoo bandhigtaa intaasaan kusoo gabagabaynaya walaalayaal assalamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu